Assalaamu calaykum. Maanta waxaynu ka hadlaynaa haddii Ilaahay yiraahdo geedka loo yaqaano Moringa oo baryahan dambe sheekadiisu aad ugu soo badatay bulshada Soomaalida dhexdeeda. Haddaba waxaynu soo bandhigaynaa faa'iidooyinka tirada badan ee la sheegay in geedkani leeyahay. Sidaa daradeed waxaa kaloo geedkan loo yaqaano Moringa oleifera. waana geed kumanaan sano loo soo isticmaali jiray siyaabo kala duwan, gaar ahaan cunto ahaan iyo daawo ahaanba. Moringa waa geed la sheegay inuu leeyahay boqolaal faa'iido oo aynan halkan ku soo koobi karin. waana geed aad loogu sameeyay daraasado iyo cilmi baadhisyo kala duwan. Sidaa daradeed waxaynu maanta halkan ku soo bandhigaynaa 6 faa'iido oo la xaqiijiyay inuu faa'iido u leeyahay bini'aadamka. Haddaba daawadayaal ku soo dhawaada kanaalka Nafaqa Channel iyo website-ka kanaalka Nafaqa Channel, nafaqachannel.com. ugu horeyn geedka loo yaqaano Moringa waa geed aad u nafaqo badan oo hal koob oo caleenta geedkana markii la shiido waxa ku jira 2 gram oo borotiin ah. Vitamin B6 na waxa laga helaa 19%, vitamin C 12%, birta 11%, vitamin A 9%, iyo maadada magnesium oo laga hela iyadana 8%. waa geed caleentiisa iyo jiridkiisuba aysan kala yaraysan xagga nafaqada. waxaana jira kaniinyo capsula oo laga sameeyay caleenta geedkan oo la shiiday loona adeegsado fitamiin ahaan, waxaana la siiyaa dadka ay nafaqa daradu ay hayso. geedkan loo yaqaano Moringa waxa kaloo ka buuxa maado loo yaqaano antioxidant. maadadan antioxidant loo yaqaano waa walxo jidhka kala dagaalama wixii sun ku ah. sidaa daradeed walxahaas uu la dagaalamo waxay keenaan wadna xanuunka iyo sonkorta nooca labaad. walxaha la dagaalama sunta oo laga helay geedkan waxa loo yaqaanaa quercetin iyo welibana chlorogenetic acid. haddaba quercetin waxay hoos u dhigtaa dhiigkarka, kan dambana waxa uu hoos u dhigaa sonkorta dhiigga, gaar ahaan markii wax la cuno kadib. si markaa maadadan faa'iidada leh jidhkaaga in ku filan aad u heshid, waxaa lagu taliyaa inaad hal malgaacad ama hal qaado oo buda oo geedkan oo shiidana inaad maalin walba isticmaashid muddo 3 bilood oo isku xigta. Moringa waxa kale oo hoos u dhigaa dhiigga sonkorta, waayo dhowr baaritaan oo lagu sameeyay dad qaba sonkorta waxa la arkay in sonkortoodu aysan u kicin sidii ay u kici jirtay. daawadii ay qaadan jireenna cabirkeedu uu hoos u dhigmay. isbeddelka la arkay waxay ahayd in sonkorta ay hoos u dhacday 21% markii la isticmaalay 50 gram oo muddo 3 bilooda. geedkan loo yaqaano Moringa waxa uu hoos u dhigaa infekshanka, gaar ahaan infekshanka muddada dheer qofka soo hayay oo difaaca jidhkuna la qabsaday. wuxuuna ku caawiyaa in awoodda difaaca jidhka uu kordhiyo si infekshanka heerkiisa loo yareeyo. haddaba maadada ku jirta geedkan oo difaaca jidhka kordhisa waxaa loo yaqaanaa isothiocyanate. Moringa waxa kale oo hoos u dhigaa cholesterolka, waayo daraasado badan oo lagu sameeyay bini'aadamka waxa la arkay in cholesterolka ama dufanka dhiigga uu hoos u dhacay markii la siiyay geedka Moringa. Moringa waxa kale oo jidhka ka ilaaliyaa sunta loo yaqaano arsenic. suntan oo siyaabo kala duwan qofka u soo gaadhi karta, haddii ay dhacdana badin karta jaaniska ah inuu qofka kansar ku dhaco. waxaana la arkay dadka isticmaalka Moringaha joogteeya inuu suntaas ka hortag uga yahay. intaa kadib daawadayaal, haddaynu soo koobno, geedka Moringa waa geed asalkiisa uu ka soo jeedo dhulka Hindida, waxayna u isticmaali jireen weligood inay ku daaweeyaan xanuuno badan. waana geed meelo badan ka bixi kara haddii lagu beero, waxuuna ka bixi karaa dhulka Soomaaliyeed. wayna jiraan dad guryahooda ku beertay si ay uga faa'iidaystaan. haddaba haddii aad leedahay xanuunada wadnaha, sonkorta, dhiigkarka, cholesterolka, waa inaad geedkan la saaxiibtaa. sidoo kalena haddii ay nafaqa dara ku hayso ama cuntadaadu aanay isu dheeli tirnayn, iyaduna waa kuu muhiim inaad cuntada ku darsato geedka Moringa.